sanqoolana waa magac magacii kale Cabdiraxmaan Cabdulaahi Bootaan asigana waa mid kale waa sax kan sidee kugu baxay xayno sidee kugu baxay xayno shorta hooyaday baa ii bixisay markaan dhashay aad baan u caddaay was very white man you know that's why my mother called Haynosh you know hooyo marka waxay igu magacawday waa cadaawe la sababtu waxay tahay midiga weyn baa jira asagana waxaa loo bixiyay madoobe black man buu kaas hooyada way ku waxay laba wiil baan ahay madoobe iyo Haynosh hooyo ma yaxane waan cadaa isagana waa yaxane way madoobe so that's why she called black and she called me white هاي سنقولات قدرتها هذا سنقول نبض وحوي وحبان كم ترى هاي ندي ذكره واجي عيرا بواحد صاحب لأهلين فرون وسقرا هاي نكافر أنا عن شيء مربى أو ما نقول كذا نعم كذا بليش والمثلان عليك القرآن بليش والبلا على إيش عبد الرحمن بلي عندنا فروض بلي ربليش سنقول نبض هالكاسن ككيري نيجي بعد مركا هذا يكمل بالتالي كذا سوي نبع لوان عن شلاي حتى مركي أو وينادي عن شلال نقضي لو عن السجن تو محد عام ما تكون عقرتها كم ذيك نول بمجات لك هالولية نول بمحمود السنية أفضل وين فكري بعدين عارفين أن جاتي سنقطه مركز الشاب وعك الصباحي فروكي صوتي ولا الصباح هاي كبعدين هو يخرع هذا من كل واحد يسردك كنت شاب هاي مركز تبغى سقالة عامة ما كنا وأقول هذا السلاسل كلها إلا هذا السنقولة دي كنت السنقولة دي كنت كنت أصيد قوة runtii waa arrin cajiib ah adiga fanka goormaad ku soo biirtay Firdawsa aad baad u mahadsantahay walaal haddii aan idinkaga warramo taariikhdayda fanku way dheer tahay waayo waxaan ahaa u bixi 72 ilaa 73 u bixi dhalinta kacaanka la foore lagu aasaasay baan ka mid ahaa waxaan ahaa dadkii qaadi jiray heesaha kacaanka sida hooyaday waa October hooyaday waa October aabahay waa Siyaad hooyaday waa October calanku waa adeerkay dhulku waa awoobay ciidu waa ayeeday aabahay waa Siyaad dadka qaadi jiray heesaha ka mid ah jaala iyo hadda maqashay ya Siyaad bare u bixi wafdiyadu bariga iman jireen dadku way hees jireen bana ka bacdina u bixi baan ka weynaaday waxaa la ii qoray inaan muusiga la baray marka muusiga sida loo tumaa la baray ka bacdina waxaan u tubay u bixi iga yar wixii inta ka dambeeyay waxaa la baray ciyaaraha inta dhanka Soomaaliyeed beerayda ما فهمت مركب موسيقي ما كواقع عياري ما كواقع وحول بمركب وحنا نقرأ هذا عافمات كنا قاتيل بنقولي ما فهمتين أنه قاعد بنو بحيك أوفر بنين سمعت كروان مركب هالكاس أيام أس كي فوق كسر بحي مركب دمبرة وين علينا وحن قال هم سيولي وحبر الشديد عادي هيدي دولتنا برتي سلات institute kala foole farsamada gacanta ilaa la foole may kala tamarkay markaan waxbarashada iyadii dhameystayna isla la foole laftigiisii technical institute la foole ayaan macallin ka noqday oo ardadii wax baray haddana fankaygii ma joojinin ee waxaan la tegay tiyaatarka waxaan la soo shaqeeyey fanaaniin fara badan waxaan la soo shaqeeyey kooxo fara badan sida horseed heegan waaberi durdur dayax xidig cid fanaaniin oo aanan la shaqaynin فنكي سوماليدي متشي انت انا waxaan doonayaa inaan caan ku noqdo suuqoolnimada aan caan ku soo caanbaxo mujaajiladayo macallinimadayda iyo waxbarashadii aan hayeen waxaan ka jeclaaday inaan wax matalo dadka hortooda istaagaan yo ki suuqooleeyo may garatay alxamdulillah way qaraxday caan ma ku noqday ilaa maantana ayadii baan ku joogaa xayno shwaayahaaga faneed runtii aad ayuu u balaaran yahay waaba badweyn mararka qaar waa la dhihi karaa waa gartay haye riwaayado badan aad ku jirtay oo aad loo xiiseeyo sida riwaayadii imtixaanka adduunka hudhud oo dad badan isku dirto madaxa isku gelisay riwaayadii rafaad iyo raaxo oo sanqoolanimada aad ku jiraysay oo maxay ahayd oo runtii aad xiiso badan u leh waa gartay bal ka waran riwaayadahaas iyo qaabkaad uga dhex muuqatay horta riwaayadda hudhud ku matalay magaceedu waxaa la yidhaha waa qoys adduunyada family problem ba ka hadlayno had iyo jeer riwaayadaha waxaa ku dhigaa aniga dhibaatooyinka dadkan had iyo jeer waxaan matalaa dhibka marka dadka waxay dhibayaan hadda soo muujiya hadda hudhud ragga iyo dumarkaan isku dirayay waxa isqabaan isku dirayay ujeedadu ma aha inaan isku dirayo bay garatay dad baa u haysta inaan isku dirayo
هذا بري لو داب بقى يصور بحري أنا اللي يروح بحمرية أنا أبي ولا توي تادي سوى حتى كيلو فيها قهوة كده كيس كدري كده كيس كدري واقع وين من نجاني أبانا أو سكوت يوميا بري ولا هاي ما سوى حين يقول على شيء وين قانيني نفي محب حسوس ما ينسى مع أنا كمان نحن dadka way usoo yaaceen maxaa dhacay riwaayad baan dhigay bay daawatay baan marka waxay u malaysay inaan dadka isku tirtirayo riwaayadana waxay ka daawatay meel halkaan oo dhiish ah oo dadka sameeya waxaa ku saaray imtixaanka adduunka dad indhoolayaal kala celinayay imbeejii indhoolayaasha waagaas Soomaali baan ka wadnay way indhalaa dadkii indhoolayaasha waagaas kala celinayay imbeej hadda waa la isku sii daayay waa dagaalada dhacaya Soomaalidan tilaysa hadda waa dadkii way indhalaa Soomaalka wax kala qabtana waa la leeyahay رفاض الراعي وجدته واحد مركز رفاض كمان مركز رفاض مرتي ودبك كشيء كبعدي بعد راح عليها شعب وشعين كان كهر لي مركارة ما يفهم تقول كيف من ذلك الصومالي واجد تيفي سيدات دي بعدي وحكي سعود شري فيلم كمان يشيل كوي الصومالي حكي سعود شري وحكي سعود شري هذا الصومالي لكن وحش كعمرة هاي فردوس واحد يقف يقول إيه تلفزيون الصومالي يقف يشيلكو سنة كام واحد سيدات يلحدي وبين سديتن إلى عندنا سديتن إلى عند دمات كذا فيلم كي لا تضبطي بين سعودي وعلى فيلم كي دقولك يسقورك صومالك فيلم كاسو عن صومالي وبا ما يفهم توركي ما أنك هبينك السوق خميسة السود يجي وعلى رجلي هبينك سقوري يا كتب توني كان دقول بالورنجي ما يفهم توركي مشروع برامج كاسو السوق خارجي marka walaal hadda xaqayga fanka iga maraysataan ilaado waa bilaabaya taariikhda fog aad ay u dheeraanaysa kan su'aal baan jeclaan lahaa riwaayadaha intaadan ka dhex bixin ma intaadan riwaayadaha baan ka dhex bixin laftigaada riwaayadaha kan moogta filmada intaad aad sheegtay maahan riwaayado badan baa jira yaa u warqalay waqtigaa jira iimaan baa jira sir haween iyo soqoolaa jira filmadu way fara badnaayeen may garata markay yaade sir haween iyo soqool waa filim jawaan aniga la gelinayay oo ما فهمت مركي لكن هاي ما فهمت مركي مركا وهذا يقال بدون اللي سنة واحد كانوا تجي آخر اللي تطوات النادي وهذه عن كفري والمجاهدين يستاهل قصة نقضي أنا جي التأدي لا تبقى أيامنا أنا بيجيني ويلي روح مركا أساس الشغل اللي يرادوا هذا إنجليز كشوبة عبد الشريف شام على يرادوا يعني أصلا أكتر كحاجة يسوع أنا مجاهدين يستاهل دنت شعر وضاقني يدق بلودي هركي ويظفر بدون عبد القادر حسن نجي ما فهمت وجهي أنا نصر لنا اللهم حريستي وهي معلم بنوها واجي نفورو أنا وبعاين وهي معلمين تعلق وإحنا صبري بقى واحد كبد عاين وقدر عاين وبدي سيد عمر شولي سيد نكال إلهه نكال إلهه نكال أورنجلي معلمين تنا فرق من الموقع إن التربية وهاجس نوعي بدو كمان كان نبري وفهمت وجهي يعني شلون حتى لما كان كومبي مدات حاجة دقع يزيد طوم لما كان أورنجلي متجاهل سياسة ده كان نبري الدولة دولة كانت ويا نصوق عقدتي محسن عبد الله بن العولقي بن أورنجلي معلم كي وراه كمان كان صابري مركب واحد كانوا وواحد يرانتي من صابري مركب واحد هو يبنى يوم ترينك هو قلت ما تصنتاي إن أدي بفهمك qaybo badan aad soo heerar badan baad soo martay waa sax falka dansigii baad soo martay markii hore waa sax muusigii waad baratay laakiin majaajilada ayaad u gooday maxaa ugu wacan taas waxa ugu wacan muusiga laftiisa haddaba waan tumaa markii loo baahdo laakiin waxaan tumaa markii aan meel wax muusig tuma uusan joogin may fahamtay kama maan qaataa waan tuntaa ma fahamtay laakiin haddii qof musician joogo waan ku xusmayaa isagaa ii tuma وانا يا ساعتها من الكقار كوت والله دقيس أما هي دقيس بالي هذا يوقف ما يعرف عجيبة هذا العاون كويس وهذا يا ويسا أنا كمان كمان رايسم قلت تاي بعفي ما عندهم كويس توانا كودي دقيس أما هي دقيس عطقي عطان كله لكن مرة كورة ضد كامبريا واحد هذا عطقي هتو معايا يعني إيه صعبية هتو خرالي يعني إيه صعبية مرة وانا يسا بدي كله وان معناها ومركي وانا يسا بدي يستلو وين وانا يسا لكن أنت كله ما هي سوى ما تحكي لي هو ما تنتهي إن خلوش أري حاجة كلها ترى واحد كل شيء مدوك كل شيء مدوك كل شيء واحد كل شيء مجال اللي قاعد عداده ومجال أنك فروق كان شبيه
وعلى آلة هذا بيكون تلاقي الجدود قول الجدود وكان سنة كام وحنا شيء ما يجي تصوى لقرية والله ما يقول قاعد ما يعني هو لو هنا ديرتها بس صح خلاص نيرين ما لا يسقسين ويا هوستك بشيء هاي أروح على شيء 59 هاي كم هي سيارة بقول هي كنتم هي سيارك يعني شباب كنت الشيء لكن ذاتك كيا هي شيء ويكوغانا يعني ما حد هذا مرة ولا شيء 64 كان شغال ذاتك 65 كيا وحيرا كذا لكن كيا كسر حسوس هذا الكلام هاي بوفيس كيا بالكوار ولا وايد حنكو بارك أليقو حكي روايد المهاجي أليقو بوفيس إذن كمان ها هاي ما حقا المهاجي دقال يرد على ده على عيال كي وين لو فاهم لنا هاي مركا أنا نقول شباب كمالي إني wax bartaan ma raba waarinta fardowso boofis ka magaalada dhanbiya la qof walba wuxuu doonayaa inuu dhoofo ciyaalkayga waan isaysanaa waan is qabsanay waxay yiraahdeen iskuulkii anigana waxaan lidee marka hore dhoof yiraahdeen de dhoof baan idin raadinayaa iskuul idin geyn maayo inta dhoof idin raadinayo wayna dugsiga dhigataan sababtan ku sheegayaan fardowso Soomaalida mid aysan fahamsanayn baa jirta عيال كان أنا أبو عام دلي كي يلتشوا مرحبا يبقوا فارع بحان وكان دمرنا يقولوا بحان كو كان دمرنا دبته وحي تلا الدنيا كان لا أبصريا كل اللي بيوانو كان دمرنا لكن كان دمرنا يبقوا قرآن كي يقانا كان دمرنا سكول مال والبويا لا لكن دكسي مال والبمية بتلذا هذا بنكوا هنا دكسي هذا دي اللي يقول لي سنة دي حتى يبغى لك تصح عام يعني سكول دكسي دقيقة no marka ciyaalkay waa barstiri doonaa oo kala dhimanaynaa iyagoo diinta yaqaan oo quraanka dhameeyaa dhoofa taas weeye tan kaga taleeya iyaguna waxay rabaan iskuulka hadda bilaabaan inagoo Kenya joogna inay dugsiga u googooyaan marka dagaalkan maalin ugu imaanaysa taas waa an xanoosh adiga inkastoo dalkii Soomaaliya uu burbur u sayahay oo dagaalo iyo wax ka jiraan halkan markaad soo gasho howlaha fanka hore baad u sii wadatay oo wali waad ku dhex jirtaa bardhaweyn maraan TV ka daawaday waxaan arkay tartan lagu qabanayo madadaalada adigoo Kenya waxaa lagu qabtay tartan telefishinka la yiraahdo Nation ayaa tartan fidiyay komediyanka wax joogo joornaalka lagu soo qoray soo had ya jeer uu dhaqaale ma haystay dadweynaha Soomaaliyeed meesha jooga xitaa dadka Kenya ku dhashay aadeen marka waxyaalaha soo kala ku arko aan arko caawiya leedahay meesha Kenya tartanka waan ka qayb galay waxaan ku galnay 207 qof baan tartanka ku galnay oo Kenyaana laakiin waan ku guuleystay anaa la marwan galay waxaana la siiyay waan qaatay the best of the weeks laba week baan Kenya lahaa oo la yiri ninka ugu sareeya Kenya waa adiga xagga komediyanka anagana university hadaan waa ku hambalyeynayna aad maasantii aad وانا جيني أترت النوع عصر كله يونيفرسال في السوق إلى نمبر 1 كذي تمام أدي لا هذا كذا حنوش بتبادشته هاي ورا أديك Soomaaliya ka soo tagtay Kenya timid wali fankii kama bixino madadaalada waad ku dhex jirtaa hadda fiiri waxa ku sheegay Firdaws waa la soo qaxay moogta hadii la soo qaxay qof walba wuxuu ahaa la soo qaxay kii kooka ah kii uu la soo qaxay kii wasiirkii ula soo qaxay kii janaalkii ula soo qaxay kii xamaalkii ula soo qaxay kii majaajiladii ula soo qaxay kii heesaagii ula soo qaxay anigana waxaan la soo qaxay majaajiladeedii waana wadaa weli Soomaalida halkan qaxooti ayay ku tahay waa runta dad badan waxay hadalhayaan sheekooyin adiga kugu saabsan oo haye Kenya ka qabsaday waa runta Kenya inta joogay anigu hadda sharci mid habeenkiina inaan socdaan rabaa Soomaalida oo dhan waa sida ayagoo sharci ay rabaan iska socdaan ma garad marka waxaa dhacday habeenada kamid ah anoo dariiq marayo socda ayaa waxaan ku soo la soo kulmay askar aruunaysa dadka wixii aan sharci lahayn aniguna Soomaaliga aan aqaano waa wax yar marka waxaa dhacday ku jawaab galay kaale halka safkii waan galay marka sharci baa la isweydiinaya Soomaaliga waxa weeye وشرعيك وابي الولادات كبارنا شرعيك كيف بالولاد مركا هذا هيستنا وادي يساتوسيسا هذا هيسنين هالكان فريسان ولا ستيج كان بوك حينيا مقرد مركو هذا على يعني إلهي أمريكي صراحة يدير بالخير لكن إسكالي وين مركو يري وين
hadduu yidhahdo waa naxaaba waxaa waytana baa iga daatay waa marka yiri calaa kulli xaal su-aalaa la isweydiinaya wiil yaro igu horreeyanaya marka leertaa sharciyaa markaasuu yidhi mimi baadhu fiika macnaheedu waxa weeye ma gaari markaasuu yidhi makengaabki masaajidta meeqasab markaasuu yidhi kubalataano socaa la yidhi marka aniga waa fakeri marka waxaan yidhi ninkani malele waa u fududeeye bal intii uu yidhi baan da tiraaya marka waxaa dhacday askartii marka intii reeday aan qiinay way iga daaratay markay intii iga daaratay aan safkiina soo galay marka askarigii baa wiilkii iga horreeyay weydiiyey la takbaan mas'uul baadhu fik markay gaabi weeyay markaasi markay gaabina macnaheedu waxa weeye meeqa baa tahay wiilku wuxuu ku rumataan waxay inta mad ka faa'iideysatay ilaa wiilkii bax baa la yidhi moogta على كل حال أنا بقول ودي لا تشريع كلام زين لا تشريع مركز أنا بعد فيك معناه هو مجال الموت إسكتي ويا تولي سكين لا سكين والله أنا كمان ولا بعد فيك يعني أنت إسكتي سفيريا بعد أنا سويت تاجر الموت كاب كمان إسكتي بعد فيك أنا بعد كذا سالي مكان قابل برضو كمان تعال ويل بشنة تونجي بعد الموت مكان قابل يعني سالي كمان ستة أنا يتون معناه أفكرتي وأنا حري قصر بيكون افتوى إلى وين أنا نقطة بينادنا أرد نقطة بينادنا ما كانت تركي مالك تاسع هبين كاسع درت هو كيف فائدة وعن كيف فائدة أذكرت بابن آدم معناها هدات كقص لسو أيوه كنتين كلام ما فهمت شرع غلط بقري الدنيا إلى روح اللي عندنا الصلاة أنا مركب قصلي ما ينافع وعندي لي الصلاة ويبدأ حالك هاي أنت اللي راسك كذا ترى ما يستكون على ما يرموك لكن أنت ضد يسكب بس على الوابس ما تاسع ما هبين ما نقول يا عسوتي سقورا ما أنا يا اللي عاو ما عاو يا أخي ما يلي كان ما عاو ما يمو هبين كمان نتيجة ما هي بعسمين شيكي كبير أنا مش شيكي سقورا وفكارة إن شاء الله تاريخ لنا إن شاء الله نكون همني غادي راي نوكا كنا وش شيكي سيد نوصلي أفر ساعة يبقى أفر ساعة من يوم كان مريض بين هذا وايد سؤال إن شاء الله تعالى بس كنتوا أرض بناء كم صبح مك أما يقطع عضوي حتى الصبح هذا الباب كل يلبس السمك كم مريض كنت أطبق السيسو هاي والله خبط والله لعك بك إنا إسفرتوا يقول هاي إنا نيجي إسفرتوا أسكتي كتير هذا يقول شيء وعينا شيء ما يستطيع ما ينا وأبو كحيل نوال ووقتك بعد بعد في كذي ما موت تامر بالقوم ولا ما تلقون فكرنا ها والله يوضي أنت اللي ودي لها وكاتي أنا العب ما يستيان لكن ما أنا مرينا العب تام أيام كأني متيس أنا هذا وحكينا لي تركي ما أنت يا عسوي أو ساعة يصدري أو يصرف يرجع ما يفهم دورك تركي موجي هذا وما حد عليه يسأل ولا ما يصعد كذي ما هي بتوعي يصعد ما حد عليه نتكلم كذا يعني كذي حبس قال ما يديك أي يري أما الحبس ولا كله أما تدك إنك تبرر بقول على مرة ما يديك أي يري سيدي ما بيجي تبرر ما كان توقي والله يراي حتى ما يكشك حتى ما برضه يقص سلام عليك كذي كان وايد اللي يراهدو إن سوق والد إيبشة ها إن مقال آد وقروح بدن ورنتي آد عجيبة أو مرة كقارج ضدك قام يكاشكين ورنتها لأننا استعماش بهاش الدراجة حتى ضد أمرين حد شيء يصير الوقت وايد اللي لانه سوق والد إيبشة وشيكة كشيكين يسمى مقادراتك هرت يسكنها في كينيا وبكون بدل السوق يصير لي هذا قف وقول لك كانوا بيمشي قف شات كان لقى قف كنين كان لقى قف قبل كان لقى قف دراجس كان لقى مركا قف البرا قف كولد اللغة حتى ككولد يسوي بسرية واحد يسوي المستوى يسوي فين كان بعض واحد بليني واحد سنين من صاحب كان اللي هذا حسنوه لكن أنا مثلا من كها فين كستنا مركا لما تلي واحد إلى هذا يا واحد كان كذا مركا واحد مريني حسنوه مركا واحد وقاعد سنة نيروبي نقول الجبنة إن واحد لو بيستوى كان كلامه مثلي سيدا يتهين وانو مثلي مركز بيرا ما عنده شيء دروغا أنا استوري مايو راقص كذا استوري مايو والمثلي يا يدك كان كوارني يا الله يسكداي لكن مو قال لك عبسة ده بكجر مربو وجهي سنكاي كان عرضيا ها نيك فيلنكا waxa weeye qofna waa tuuqa kamarada qofna wuxuu u sameeyaa waa tricks ka kamarada
taa waxaa iska lahaa ninaga Abuukar Mahdi isaga ayaa lagu hambalyeynayna Abuukar isagaa filmka ka shaqeeyey isagaana ka soo saaray filmka sida uu yahay ee dhabta ah وانا نكون تخصصي سنة الوارد لي حاجة كاميرا ذا يو حاجة كاميرا تريكس كي وحياة يبقى كلفتي سمارة تجري إنترنت معايا لا أنا I don't know نبغى نلقى بالكمبيوتر كلا كلا بدي أموت أبوك ما تكون ما تسيه فين كاره سجى سدا كده إن إسلام فين كاسم كوجود جرنا إن صور فرق بدن باجنا مر باقبر لقى علينا يا أولاد هاي إن الجولي ورسوب وأتكدر جدون تاي ها بجوابته gabadha waxaan ka wadaa sheekada filmka ayaa waxay tahay ninkan drugska markuu isticmaalo ayuu haddana wuxuu doona sameeyaa drugskii aan isticmaalayay horta filmka sheekadiisa guud baa waxay tahay nin ardaya baan ahaa waa laygu soo bardaa yani aad iyo aad baa laygu soo barbaariyey waa laygu soo dadaaliyey waalidkay baa igu soo dadaalay ilaa heer jaamacad baan ka baxay markii la rabay inaan dalkii iyo dadkii wax taro ayaa waxaan u wareegay xagga drugska gabadhan istiinka iga tusay jacaylkan gabadhan u daba jooga jacayl laba maahan istiinka drugska markaad isticmaasho wuxuu kaa tusaya inaad dadisho mar wuxuu kaa tusaya inaad wax jeclaato mar wuxuu kaa tusaya inaad derbiga aad inta fuushid iska soo tuurto may fahamto warkay marka wiilkana waa wiil arday ah oo i ogaa waxbarashada inaan beri taf ku ahay anoo qashinka dhex jiifana wuu arkay wuuna ka xumaaday marka ka kaca buu leeyahay meesha anna waxaan leeyahay kici maayo ma fahamto gabadhana waxaa leeyahay war gabadha iska daa maya waan jecelahay war maxaa dhacay ilaa weylaa hadda halaygu daro haddaan u baahanahay hooyaday baan keenaya adeerkay baan keenaya waxay oo dhan baa waxay yihiin maarag qasab xoog jujub haddii la ii diidana way isdirayaa wey may garata markay marka waxaa dhan waxaa iga tusaya sakrata xataa waxaa leeyahay tartiib waa iska boobin mogta waad qurqurin doontaa bay leeyahay maya waa leeyahay way iga dhammaanaysaa waan kabaysanayaa waan leeyahay xaynosh fanaaniin fara badan oo Soomaaliyeed baa halkan kugula sugan oo isla aad isla tihiin wali xiriir intee la eegayaan ka dhaxeeya maya anigu joker baan ahay waan la shaqeeyaa Kenya markii barnaamijka laga sameynayo aad iyo aad baa xagga hidaha iyo dhaqanka kaalinta koowaad baan uga jiraa xitaa moogtahay hidaha iyo dhaqankii hore ma jiro oo dadkeena iskuma xirna laakiin waxaa jira kooxa aan isku soo aruuriyey oo aan xataa ku dadaalay inaan tababaro oo folklore dansiga sameeyo ayaa jiro caawa haddii la yidhaahdo faystaa jirta ama luuliyaa jirta kooxdaas way tagtaa may garata markay comedigu kama maqna haddii xayeysiin ay tahay ama xayeysiiyaan odhanayna ama hay-adaha samafalka oo kale barnaamijya loo qabana cayaarahan u qabanaa heesahan u qabanaa gaar ahaana aniga intaan Kenya joogay waxaan ka shaqeeyay ku dadaalay qaybta nabadda xitaa waxaan gaaray heer aan ka qaato ay shahaadada siiyaan la yidhaahdo magaceeda ambassador of peace marka documentskaygu aad u fara badan yahay aan Kenya ka qaatay waxaan kaloo Kenya ka soo dhignay riwaayado fara badan oo ay ka mid ahaayeen iska dhaaf waagii sargubiya joogeen oo taanka iyo aan waxay yaalla oo taankaha ogaada adduunku waxaan kaloo soo dhignay riwaayad la magaceeda qarqode ummadooda qarqodaa baa wuxuu qayb leeyahay waxaan kaloo soo dhignay riwaayad la daacad inta la soo baan sameeyay waxaan dhignay riwaayadii cakaaro oo Saciid Saarax waxaan dhignay geedka nabadda waxaan dhignay tubcaano oo hadda socota oo aan wadna hadda oo ayadana riwaayad kala ma fahamtay inta waxaan loo dheertay barnaamijyada kale ee nabadda aanu kaga hadalnay ee noo gaarka waa tahay Soomaaliya adiga mar hore kugu dambeysay fanaaniintii Soomaaliya joogtay fankii Soomaaliya dhinaceeda ma isleedahay aad ayuu uga burbursan yahay aad iyo aad waxa weeye fanka horta meel kasta joogo wuu burbursan yahay laakiin waxaan noogu dhib badan fanka Soomaaliya sababtoo ah waxa weeye fanka Soomaaliya markaan idaacadaha ka daawanayno ka arkayno ka fiirinayno waan garanaynaa meel dagaal ka dhacay meel burburtay meel dadkeedii burburay dee fankeeduba kuma noolaan karaba ma fahamto waxaan ugu mahadcelinayaa nimanka fanaaniinta hadda aan ka aragno xamar oo universal ayna daawadsiisay ee fanaaniinta ay xamar wax ka jiraan ya maba aanan u malaynaya inay nool yihiin laakiin waan ku hambalyeynayna dadaalka ay samaynayaan iyo waxyaalaha waxtarka ah oo macnaha ay ku muujinayaan inay nool yihiin waxaan rabaa hadday ama dhaqaale heli lahaayeen ama waxyaalo kale oo dad horumariyay heli lahaayeen dee fankaba meeshaan kasoo aasaasnay waa Soomaaliya gaar ahaan xamar inay waxaan ay wax weyn soo saari lahaayeen fanaaniin badan oo Soomaaliyeed ayaa sidoo kale dibadaha ku nool ma xiriirtaan oo ma tihiin saaxiibo isku dhow sidii
واجي نبض إلى الصومالي اللي وده جوا ها أنا قال هو لا حقيقة أيه ويا فلان أنت أيه جهاجي حق الجوريبة يا سيسي